I would advise them to do well at university. I would advise them to make sure that they educate themselves, they learn about their culture, because I think when you're in a different country you can kind of get lost up in university. I think they need to kind of remember back home. I think it's really important that, alhamdulillah, we've been given the opportunity to study here and others haven't, and I think it's important that you remember where not to forget that there's your people that, you know, still require help, that, you know, there's a country that still requires building, and it requires your skills and your education, your expertise, and that, you know. I would advise them to get involved in initiatives like the Worldwide Somali Network. It's a great vehicle to improve the situation of the Somali community, so that would be my advice: get involved. Work hard, always aim high. There's nothing that a person can do that you can't, and just try and think that you have some opportunities that other people in Somalia don't have, so don't take it for granted. I would advise fellow students to keep doing what they do best, which is working hard and, you know, being proud of who they are, being proud of Somali and Somalia. And you know, I think you know, this is a phrase that keeps getting told to every generation, which is that, you know, you're the future. But I think in the case of the Somali situation, it could not be more true, because we have a whole bunch of problems that just are waiting for young minds, young ingenuity to solve. And that's what the Worldwide Somali Student Society is trying to do, and that's what we must do. I would advise fellow Somali students anywhere in the world to really come together, work together, exchange thoughts, even if it's just talking about what's going on back in Somalia. I would say personally that it's even more important to engage with fellow students and interact, form societies like our society, the UCL Somali Society, because so many positive things have come out of it, if it's just events or making friends or thinking of ways to help the Somali community or Somalia. ardayda Soomaalida waxaan ku waanin lahaa xasuuso meesha ka imaatay, dadkaadana xasuuso adiga ku baahan yihiin adaa lagu sugayaa. Marka inshallah isku day wax kasto sameyn kartid inaa waxa baratay ku saacidid dadka. Take advantages of the skills and resources that Westerns are, you know, offering them, and then inshallah if go back home and apply whatever they learned in their homeland. Worldwide Somali students waxay u baahan tahay dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee caalamka daafiisa kala joogo inay ka mid noqdaan. Walaalayaal saad ogtihiin waxa dalkeena iyo dadkeena dhibaato badan ayaa haysto. Waxaan u baahanahay inaan xooggeena mideyno. Sidaa darteed haddii aad adiga walaal Soomaaliyeed tahay oo dalkiisa iyo dadkiisa u dhaqanayo 20 sano kadib maanta mas'uuliyadda anagana saaran tahay. Marka insha Allah ta'ala arday kasta oo Soomaaliyeed ama arday hadda ha noqdo ama ardaynimaha soo maro jaamacadaha ka soo baxo high school ka soo baxo inuu dalkiisa iyo dadkiisa dhalinyarada wax u qaban rabo oo Soomaalida oo ardayda ah oo ku midoobo inuu ka mid noqdo. Waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala videogan markuu soo gaaro inaad ka fikirtid arday miyaa tahay dalkaaga dadkaaga ma jeceshahay Soomaalinimo ma jeceshahay inaad Soomaaliya oo aad nabad ah oo wanaagsan oo dalalka adduunyada ugu wanaagsan ka mid noqdo haddii aad rabtid fadlan naga soo mid noqo iskuna day sida aad dalkaaga dadkaaga wax u qaban lahayn aad fikir ahaan nagu soo darsatid insha Allah. waxaan jeynayaa ariyadayda rumoodo waxaan jeynayaa nabad iyo raaxo waxaan jeynayaa nabad iyo raaxo nabad iyo raaxo Soomaaliya kasta meel kasta joogaan Soomaaliya saacado